السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدوا هذا صاحب بيال عاوية بلدي قدام بيه يقود بأدو حيث بدن وحساسية برنامج كينا حبينا كسوقاته طبعا وحالة هذا مركا كنحتاجن وبيشي ورسنجلي مامولكي بوتلان أما سيدا أي مركا بيشي ورسنجلي أما قابك يقربين magaala xeebeedka laasqoray iyo dekadii markaa in la dhiso taasoo ballanqaadkeeda markaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay bixisay qorshahaasina oo ahaa mid markaa dowladda Sacuudi Arabiya iyo dowladda Turkiga ay bixinayeen oo dabcan dowladda Turkiga base ciidan meesha ay ka diyaarsanayeen iyo proxy work markaa hadda socda oo geeska Afrika ama Middle East gebi ahaanba ay sheekado dhan kusoo koobmayso balse mid muhiim ah markaa meesha taalay oo beeshii warsangali iyo gudantooda ay fiirsanayeen oo ah in magaala xeebeedka laasqoray beeshii warsangali dekadii taariikhiga ahayd ee ku taalay in markaa la dhiso oo dabcan maamulkii waqooyi bari mid ku xisaabtamay dowladda federaalka ee Soomaaliya mid ku xisaabtamaysay beeshii warsangalina mid ay si khaas ah markaa ku xisaabtamaysay oo arrinkaasi ahaa daba arrinkaas oo dhan waxa diiday ama markaa isugu diiday waa madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu sheegay qorshaha ay dowladda federaalka ee Soomaaliya rabto in dekad magaalada laasqoray markaa laga dhiso gebi ahaanba markaa in meesha laga bixiyo arrintaasi waxa ay sababtay gebi ahaanba bulshadii reer Maakhristeed ama beeshii warsangali dad badan oo markaa deegaanka ka soo jeeda in madaxweynihii Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo maamulkii Puntlandba ay iskugu yimaadaan maadaama oo beeshii warsangali dantooda ugu weyn ay ahayd dekada laasqoray in markaa loo dhiso arrintii haddii markaa Puntland ay ka soo jeesatay oo Saciid Cabdullaahi Dani sabab la sheegay uu markaa diidan yahay in dekadii laasqoray markaa la dhiso dabcan beeshii warsangali dagaal culus ayaa ay soo qaadeen oo gebi ahaanba marka aad moodid arrinkii ay ku hanweynaayeen ama maamulka Puntland ay markaa ku taageersanaayeen Saciid Cabdullaahi Dani arrinka oo meesha ka bixinayo wax aamin inuusan markaa meesha imaanayn beeshii warsangali hadda ay markaa taageertay dhulkayga annaka iskale dekadna waa laga dhisayaa waxaan rabaa inaan kusoo qaato waa dagaalka markaa socda iyo weerar markaa ka yimid waa Caaqil Faarax Fushane oo ah dabcan nin ka soo jeeda maamulka waqooyi bari isagoo aaminsan inuu ka tirsan yahay maamulka waqooyi bari balse Puntland aysan waxba wada qaybsan iyo dagaalka culus ee uu markaa soo qaaday ayaa rabaa inuu kusoo qaato dabcan howlo badan baa socda bal Faarax Fushane iyo dagaalka ay beeshii warsangali soo qaaday kadib markii uu Saciid Cabdullaahi Dani diiday in dekada laasqoray la dhiso meesha ila fiiriyo وهجان وحاهي أنا سعيد هرتين حمود هرتين يتذكر لديك ولديك وهلد جديدني ويستغلني ويديني وأحمد هرتدايتي له أيام أحياني وهجان فرح فوشاني وبطلع مركا الله دقالمي أما سعيد عبدالله داني وتاجن dhulkay waa wada xeebo dekadii la asqorayna markaa waa in la dhiso dib Saciid Cabdullaahi Dani markaa diiday mid aan ka aqbalayna maaha hadalba waxa uu ku bilaabay wadeegaamada iyagu markaa ay leeyihiin beeshii warsangali khaasatan oo dabcan hadalkiisa xasan sheekh maxamuud ayaa ku raalgelinaya ma fahmin balse wuxuu taagay deegaanka beeshii warsangali waxa la degan oo dhulka la wadaaga waa beeshii habargidar marka waa cajaayib waa mid aan aamini waayay beeshii habargidar baa waxay degantay gobolka Sanaag iyo dhulkii saldanada ee Maakhristeed وهبرجدر يورسجل بقى واحد وضع قيب سنة وآخر يقول قصب أو أن مكاره مقلن حسن شيخ محمود بكرة لجلنا إياه ما مالك راي هوش أسعطا ومد أفهم واي ما حيلا دي دبعة واحد إن أجنا هاي إن واحد بقى كرة لجلنا حسن شيخ محمود هذا الكيس متاسو بيجي هاي مقاب كلا وحوش سعودان بس سواء مد يقول قصب سواء مركا دجال كيس وشهي سعيد عبد الله الداني مامل بطلان أما باشي متشاركين إن وحلقة بصدق ديدن هي أفرح فوشانة waxa uu sheegay in gobolkii Sanaag iyo dhulka beesha warsangali degantay Maakhristeed in habargidar iyo dirba markaas ay la degan tahay waa gobolkii Sanaag وهلا حسودين وحداد حسين وإذا وحيد فعلي كم تقول لقيا وحيد مرة فعلي كم تقول إذا نجح حسون والدولة بالصومالية تحسون والضغط الصومالية تحسون وحيد فعلي كم نقول دولة باينين ورك يعني وهلا فرح فوشنا قدام بيتي هذا الكيس يسقى أيام مركا هذا الشيء بناك أي أصاب حي وأخنتي مركا أي نولايا بناين أي أحيد إن dhulka Maakhristeed ee beeshii warsangali degantay iyo saldanadii beesha habargidarna ay markaa dhinac ka degan tahay waa hadalkiisa ugu dambeeyay ayaa uu ku cadeeyay oo uu taagan yahay xasan sheekh maxamuudna waa inaad raali gelisaa oo aad xishmaysaa taas macnaheedu noqonayo
faarax fushane isagoo markaa masheerteen la dagaalsan ama Saciid Cabdullaahi Dani iyo maamulkii Puntland ugow waxa uu la dagaalamayo uu leeyahay yacni waa aynu ku kala tegaynaa ama aaba xasan sheekh maxamuud haddii markaa lagu raaligelin waayo tallaabo walba oo la qaadayo dee wax walbaad naga filanaysaan oo aanu samaynaynaa taasi dabcan may noqonaysaa marka beeshii warsangeli oo u dagaalamaysa in dekadii laasqore markaa la dhiso mase hawl kale ayaa meesha ku dhex jirta waa arrin aad u layaab badan dee dabcan noqon maysa taasi beeshii warsangeli ayaa marka u dagaalamaysa dekad waa hawl xasan sheekh maxamuud markaa lagu raaligelinayo ayaa meesha ka socota wax kaloo iiga muuqda dagaalkaas buu ninkaasi soo qaaday meesha hareerata ma jirto sharafi dhimatay heerkaas baa dii la taagan yahay waa adduun aabbihi wasay kuma raagina videoga halkaasaan rabaa inaan kaga tago iyo beeshii warsangeli dagaalankii ama qaabkii ugu dagaalamaysay in dekada laasqore markaa la dhiso dabcan dee halkaasi kusoo gabagabowday iyo hawl lagu raaligelinayo waa xasan gurguurte ayaa sheekadii lagu soo gabagabeeyey waxay noqota aynu arki doonaa videogan halkaasaan kaga tegaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu